Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sideen ku ogaanaa inaan qabo il? Midda ugu horeysa horta nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qof walba nimco haysto il xasidna uu qabaa mataqaanaa ma fahamtay. Waa iska caadi qofka bini'aadamka markii wax lagu arko wanaag qofka kale iska fiirina wuu damcayaa kadibna wuxuu rabaa waxaas inuu helo. Waa damac bini'aadamka ku jiro. Marka qaar waxa dhacayso qofka asoo xitaa ugu talagalin inuu qofka mataqaanaa isha u galiyo ama il xasideed ay iska galaysaa qofka kale. Qofka xitaa waxa dhacayso inuu naftiisa uu isha galiyo way dhacdaa iyadana sidoo kale. Marka sidee mataqaanaa ku ogaanayaa waaye qofka haddii aan il qabo. Inta ugu horeysa waxay tahay waxa ogaanaysaa daal badan isku arkaysaa sidii hore si ka duwan oo daalaysa daal sayid adoo waxba qaban xitaa iska daalay. Midda kalena waxay tahay naftaada inaad sayid u fiirinayso muraayada oo aad sayid muraayad soo fiirinayso intii aad isku fiirin jirtay in ka badan muraayad isku fiirinayso. Midda kalena waxa waaye saddexaad ooyintaada badato qofka oo iska ooynaayo malayani iskaga ooynaayo isciilaayo waxyaalaha camal waxay cadeynaysaa macnaha inuu qofka il xasid ku jirto. Haddii ilaahay dartiis loo ooynaayo cibaado loo ooynaayo ama mataqaanaa ama waalid ama geeri wax sidaas waa la fahmi karaa balse oohinta qaar waxay cadeynaysaa oo aan meelna ku turnayn inay qofka il ku jirto. Sidee marka qofku isaga badbaadin karaa? Waxa ugu horeysa waxa waaye ilaahay baa mahad iskale oo maslaxadii keenay xanuun walbana daawadiisa la soo dejiyay. Waxa weeyaan waxa ugu horeeya in qofka akhristo suuratu al-baqara. waa suurad aad iyo aad mucjiso u leh waa suurad awood leh ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka ku furfuray kadib markii laga soo tago faatixada. Marka waa suuradaas caafimaad bay u tahay. Midda kalena waxa waaye qofka hadduusan dhammayn karin suuratu baqara oo maalintii uu dhammayn karin inuu ugu yaraan aayatul kursi ku kabo oo akhristo wuxuu akhrisan karnaa al-baqara ka akhristo. Midda kalena waxa weeyaan inuu qofka sidaas oo kale aamana rasuulka ka bilaabato ilaa al-baqara dhamaadkeeda uu akhristo ayadahaasi. sidaas oo kale qul a'uudu birabbil inuu akhristo qul a'uudu birabbin naas inuu akhristo qul huwallahu inuu akhristo iyo sidoo kale a'uudu bikalimatillahi taammaati min sharri maa khalaq. intaas qofka iyo sidoo kale inuu qofku weysada u qabo qofka hadduu weyse qabo xitaa ma awoodo inuu mataqaanaa wax ay ku dhacaan ma awoodaan sababtoo ah waa xijaab ilaahay xaggiisa ka yimaada subxaanahu wa tacaala mana aha wax iska caadi ah mataqaanaa waa mucjiso. qofka weysada qabo malaa'igaa daba socoto oo ilaalinayso sidaas oo kale ilaahay raxmadiisana mataqaanaa mar walba way ku hawgan tahay. sidaas oo kale ilaahayna il gaar uu qofkaas u leeyahay wuu ilaashanayaa intuu dadka dhex socdo intuu hadlaayo ilaahay xusaayo weysadaas uu qabo cibaado waaye. marka sidaasi aan sameyno ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin badbaadiyo idinka iyo anigaba iyo sidoo kale kuwan jecelnahay ishaan allah naga qabto iyo wax walba oo mataqaanaa aamiin.